dhegeystayaal marka lagu soo dhawaado Soomaali Positive 24 TV weelay mahadis hawada ayaan kusoo laabanay intaan cilad farsamo ay jirtay champion-kii falanqayntiisina waa ka dahnay laakiin caawa waxaan rabnaa arrin aad u xasaasi ah oo haritaankii Barcelona inaan falanqeyno waxay la falanqeyn doonaa Ismaaciil iyo Cabdi Cabdullaahi oo labadaba aad u falanqeeyay ciyaaraha kubadda cagta markii timaado gaar ahaan ciyaaraha Yurub waxaan rabnaa inaan ogaano wixii ku dhacay Barcelona iyo waxa sabab u ah iyo waliba halka uu ku dambeyn karo xaalka Barcelona Messi ayaa kooxda dhabay ku tiirsaneed waxa soo dhan aan falanqeyn doonaa in la socdo saaxiibada waxaan rabaa Ismaaciil inaan ku weydiiyo Barcelona inay hartay maxaa sabab u ahaa waa mahadsantahay Saadam marka hore waa idin salaamayaa dhageystayaasheena qaaliga ah cilad farsamo awgeed ayaan hawada ugu maqnay waa idin ka raaligelinayna waxaan aniga isleeyahay Saadam Dilira Barcelona inay ku tiirsanayeen hal shakhsi haddii aad fiiriso kooxdii waaba koox iyo koox la'aan marka Messi markii uu joogay waxay ahayd Champions League horyaalkooda waa dad guulo badan ka gaareen waa koob ay maanta ay ku hamiyeen oo mar walba oo lagu tilmaamo waa tiimkaas haddana haddii aad aragto waxaad isleedahay kooxda wax badan ka qaldan marka aniga waxaan is dhihi karaa hogaankooda ninka hay ay ku tiirsanayeen ka tagay adiga si kala tasaaf waa ku raacsanaa inay kooxda Lionel Messi oo ku tiirsaneed midda kale waqtiga cad oo waqtigan haddana kubaddu aad isu bedeshay maadaama is bedeshay kooxdana dhaqaale deeni wax lagu leeyahay ciyaartooyna waaweyn inay iibsan karin Messi bedel badan ka jira marka Barcelona Dilira marka dib u dhac taas keenayso halkaas waxaan rabaa in la weydiiyo macnaha Barcelona waxa haayo oo hadda ku dhici haayo ma u sababeyn karnaa maadaama footballkii uu yahay dhaqaale socdo dhaqaale darteed ma falanqeyn karnaa iyo su'aasha labaad oo ah football macnaha ma la dhigi karaa waxa ku dhacay Barcelona waxay hordhac muuqdo u tahay in kubadda cagtu aysan dhaqaale darro socon waa laga yaabaa inay dhaqaale darrona ay tahay haddii maadaama uu shakhsi ku qaali yahay oo ka tagay haddana ciyaartooy fiican ay la soo iibsanin laakiin dhaqaale la'aan iyo dhaqaale darraba ma isdhihi karnayeen kooxdii waxba tabar darro saa'id aan ku aragnaa hayse kula tahay inkastoo dhaqaalaha oo businesska muhiim u yahay haddana laakiin way ku xiran tahay qasab oo midda kale kooxdana deen badan oo 1 billion kor u dhaafay lagu sii leeyahay midda kale ciyaartooy waaweyn haddana waqti xadarkan oo birigu Barreira ama Barcelona ama diida ma jira laakiin haddana xagga suuqa aad u wax labeen ku tiirsanaan si oo Lionel Messi hoos u dhaca waxa uu keenay waa kaas duu ka tagay taas oo soo maadaama Europa League ay aaday maxaa la dhigi karaa Europa League xogaa natiijo wax wala geeyeen jiraan haddii ay Champions League ay ka hartay Europa League ay ka horeeyaan kooxihii la yaqaanay oo Talyaaniga iyo Careysan iyo kooxo badan oo meeshaas joogo ma isdhihi karo inay Europa League waxba ka keeni doonaan ayagoon iska bedelin qaab ciyaareedka haduu dheelaa ay jawaab midaas mid ma bixinaysaa mid ka duwan ما يوروب ليج waxba ka keenay mis Barcelona kooxo weyn meeshaas aad jiro oo aad u dhib badan kooxo waliba tafas ugu dhib badnaa Champions Barcelona oo ka wada noqday Dortmund iyo kooxo Talyaaniga dhamaay wax badan meesha jir jabhadii oo dhamaan jirto meeshaas aad oo City labadiinaba waan falanqeyseen waan tabcan ku sii socon doonaa barnaamijyada caasimada aad iyo aad u mahadsantiin saaxiibayaal